بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله casharka waa casharadii noo soo socday oo ku saabsanaa backup tracerka kaasoo aan ku baranayno sida la isugu xiro router switch iCloud PCs iyo cable modem iyo waxaa kaloo nala socda wireless router baa la socda xataa printer buu wataa server buu wataa waa cashar aad iyo aad u muhiim ah oo ilaa iyo 9 ilaa iyo 9 device baa la isku xiri doonaa hadduu la yiraahdo insha Allah casharkan oo bilaabanayo kan ugu horreeya step 1 part 1 step 1 kiis waxa waaye cloudkii routerka isku xiraynaa noo soo qabo F00 taabo ku xir Ethernet 6 ka ku soo xiga step 2 ga oo part 1 ka ah cloudkii waxa la isku xiraa hadduu la yiraahdo cloudkii waxa isku xirnaa cable modemka 7 taabo 0 taabo kan ugu soo xiga hadduu la yiraahdo waxay noqonaysaa hadduu la yiraahdo step 2 way part 2 step 1 router 0 iyo router 1 ka waxaa lagu xiraa serial DCA baa lagu xiraa xarig gooni buu leeyahay attention si markaas xariga ku xiraysid 00 taabo noo taabo noogee router 1 ka noogee asna 00 keli ah waxaa noogu xiga part 2 step 2 router 0 iyo waxaan isku xirnaa hadduu la yiraahdo iyo netcard isku xiraynaa isaga waxaan isticmaali doonaa hadduu la yiraahdo waxaan isticmaali doonaa fiber optic baan isticmaali doonaa fiber optic aan isticmaali doonaa nagee halkaas F01 taabo aan naga diiday wuu naga diiday inaan mataqaana aan isticmaalno cable waxaan isticmaalnaa hadduu la yiraahdo saa aragtaan cable crossover oo isticmaalinaa kaasaa ka saxsan 01 taabo to F0 server router baa la isku xirayaa okay waxaa noogu xiga step 3 oo weli part 2 ga maraynaa step 3 hoos fiiri 40 R80 maraynaa step 3 waxaan isku xiraynaa waxaan isku xiraynaa hadduu la yiraahdo router 0 iyo configuration terminal waan isku xirnaa hadduu la yiraahdo R32 noo taabo kor u kacnay 50 maraynaa okay step 3 noo gudbiya router 1 ka iyo switch 1 isku xirnaa hadduu la yiraahdo router 1 iyo switch 1 isku xirnaa hadduu la yiraahdo okay cable straight through cable ma qaadanayo waxaan dhiraa ma qaadanayo cable crossover ma qaadanayo cable straight through aan tijaabino okay F10 kaasna naga diiday kaasna ma qaadanayo let's use fiber ka isticmaalno okay fiberku naga isticmaal mujida naga ogolaaday 01 we are 60 okay part 3 step 2 modemka iyo waxaan isku xirnaa wirelesska modemka iyo wirelesska isku xiraynaa modemka iyo wirelesska isku xiraynaa waxaan isticmaali doonaa hadduu la yiraahdo waxaan isticmaali doonaa internet port okay let's try this one okay cable crossover aan isticmaalnay kalka wuxuu noqon doonaa port 1 aan taabanay inayna taabo 70 u boodnay
okay ka ugu dambeeyo oon 80 ku heli doono muxuu noqon doonaa wireless routerka iyo family PC-ga isku xiri doona haddii saa ujeedan family PC-gu wuxuu ku xiran yahay ma laha okay noo soo qaad kaas internet one taabo waxaan isticmaalnay cable straight through baan isticmaalnay wirekaas waxaan taabsanaynaa family PC-ga ethernetka 80 out of 80 saanu noo ekaaday cloudkii cable modemkii wireless routerkii family PC-gii labadii router waxaan isticmaalnay router 0 iyo cloudka waxaan u isticmaalnay copper straight through cable baan isticmaalnay waxaan isticmaalnay markaan ku xirin routerka markaan ku xirinay serverada ku xirinay waxaan isticmaalnay copper crossover aan isticmaalnay markaan isku xirinay router 1ka iyo switchka waxaan isticmaalnay fiberkan isticmaalnay wireka ah markaan isku xirinay cloudka iyo cable modemka waxaan isticmaalnay serialka waxaan isticmaalnay coaxial actually coaxialka isticmaalnay markaan isku xirinay cable modemka iyo wirelesska waxaan isticmaalnay cable waxaan isticmaalnay copper straight through routerka kan isticmaalnay routerka kale isku xirkan isku isticmaalnay markaan isku xirinay wireless routerka iyo family PC-gana copper straight through isticmaalnay casharkeena maanta halkaas loogu egyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu